qof walba waxaa lagula talinayaa inuusan marnaba ka xanaajin saaxiibtiisii hore haddii kale ma ogaan doontid sida aad u dhimatay. waxay u dhacday si fudud. wiilkan qurxoon ayaa waqti fiican la qaatay saaxiibtiisii hore. markii ay kala tageen xili uu qubaysanayay, saaxiibtiisii hore ayaa si lama filaan ah ula wareegtay maamulka qalabka casriga ah ee guriga. waxay kordhisay heerkulka biyaha qubayska 100 darajo. sababta ay gabadhu argoosiga u samaysay ayaa ahayd in saaxiibkeed uu ahaa nin aan waqti siin, taasina aad ayay uga caraysiisay. markaad aragto wejigeeda oo sidaas u muuqda, waxaad ogaanaysaa in wax xiiso leh ay dhici doonaan. isla markiiba qolkii qubayska waxaa buuxiyey uumi kulul. wuxuu si degdeg ah ugu qayliyey aaladda codka ku shaqaysa in ay hoos u dhigto heerkulka biyaha. nasiib darro, aaladii wax jawaab ah ma bixin. sidaas darteed, wiilkii qurxoonaa waxaa lagu kariyey biyo kulul oo aan naxariis lahayn, sidii rah la kariyey oo kale. nasiib wanaag, saaxiibtiis waxay ahayd mid naxariis badan oo aan doonayn inay disho, balse waxay rabtay inay cashar u dhigto. laakiin waxaa dhacay wax aan la filayn. ninkii, maadaama uusan istaagi karin, ayaa si toos ah dhulka ugu dhacay. markii ay saaxiibtiisii hore aragtay muuqaalkaas, isla markiiba waxay damisay qubayskii. laakiin markii ay aragtay dhiigga dhulka yaal, way yara argagaxday. markii ay hubisay in ninkii uu miyir daboolmay, saaxiibtiisii hore waxay si degdeg ah u wacday telefoonka gurmadka degdega ah. dabdamiska ayaa si degdeg ah goobta u yimid. markii ay yimaadeen guriga ninka, kaamirada ilaalada ee casriga ah ayaa aqoonsatay inay yihiin shaqaale gurmad. waxay si toos ah u furtay albaabkii, taasoo ka yaabisay shaqaalihii. waxay u muuqataa in tiknoolajiyadda casriga ah ee gurigu ay faa'iido leedahay. intaas kadib, waxay ninkii ka heleen qolka qubayska. layaabkooda, waxay arkeen in jidhkiisa uu gubtay. sidaa darteed, waxay si degdeg ah ula xiriireen saaxiibtiisii hore, iyagoo weydiiyey sida ay wax u ogaatay. markii ay aragtay inaysan iska qarin karin, gabadhii waxay ku qasbanaatay inay qirato wixii ay samaysay. markii ninkii la badbaadiyey, wuxuu ogaaday in saaxiibtiisii hore ay ka dambaysay falka. isla markiiba wuxuu isku dayay inuu kaco si uu ula xisaabtamo. laakiin xaaladan oo kale waxaa fiicnayd inuu sugo inta uu ka bogsanayo ka hor inta uusan wax kale samayn.